wararka goor hore oo subaxnimadan saaka ee isniinta laga helayo gobolka Karabakh ee colaadu ku dhex marayso jamhuuriyadaha Armenia iyo Azerbaijan ayaa waxa ay wararkaasi sheegayaan in dagaal adag oo faraha la isula tagay uu ka socdo duleedka magaalada istiraatiijiga ah ee Shusha halka sidoo kalena qaraxyo laga maqlayo agagaarka caasimadda gobolkaasi ee Stepanakert oo isla aagaasi ku taala magaalada Shusha oo ay ka socoto duqeyn ballaaran ayaa duleedkeedana waxa ka dhacaya dagaal culus iyagoo dad goobjoogayaalihi ay warbaahinta caalamiga u sheegeen in koonfur bari magaalada xarunta ee Stepanakert laga maqlayo qaraxyo waaweyn inkastoo bay yiraahdeen ay xaaladdu degan tahay gudaha magaaladaasi iyagoo ciidanka maamulka gobolka Karabakh ay sheegteen inay soo rideen laba ka mid ah diyaaradaha aanay duuliyayaashu wadin ee ciidamada Azerbaijan waxaana jirtay in habeenkii xalay dhowr jeer laga maqlay gudaha caasimadda gobolkaasi dhawaaqa digniinaha dagaalka bixiya halkaasoo markeedii horeba ay iska yar yihiin dadweynaha ku sugan waana xilli ay ciidanka Azerbaijan isku dayayaan inay dagaalkooda dhammaystiraan ka hor inta aanu soo badanin ee soo kordhin xilli qaboobo oo aanu barafkuna isku daboolin dhulka buuraleyda ee colaadu ka socoto 27 bishii Sebteembar bay ahayd markay colaadu dib uga dhex qaraxday labada jamhuuriyadood Armenia iyo Azerbaijan iyadoo wixii xilliga ka dambeeyayna ay ciidanka Azerbaijan qabsadeen oo gacanta ku dhigeen in ka badan kala badh dhulkii laga haystay oo ay ku jiraan magaalooyinkii waaweynaa ee gobolkaasi oo labadan oo maanta dagaalku ka socda ay ugu sii muhiimsan yihiin maadaama dhicitaanka ay magaalada xarunta u ah gobolkaasi ku dhacdo gacanta Azerbaijan uu macnaheedu noqon doono inay Azerbaijan dib u soo ceshatay dhulkii laga haystay ciidamada Azerbaijan oo taageero ka helaya militariga Turkiga ayaa muddo bil gudaheeda oo ay duulaan cir iyo dhul ah sii wadeen ka bacdi waxa ay u dhow yihiin inay dib u xoreeyaan dhulkii laga haystay muddada 30 sanadooda ee wada hadallada iyo waanwaanaha been abuurka ah lagu khiyaameeyay iyadoo colaadda gobolka ka dhacday oo ka mid ah dagaalada jiilka shanaad ay muddada bisha ah oo kaliya labada dhinac kaga dhinteen qiyaastii 15,000 ilaa 25,000 oo ciidan iyo rayd bay isugu jira colaadda oo ay door weyn ka qaateen diyaaradaha aanay duuliyayaashu wadin iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaabiye jannaalow cirdarroorshihii carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risa cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow